su-aashu wallahi inoo weydiina waxay tahay maadaam dacwadu shay waajiba ay tahay qof walbana doonayo inuu dacwadii gaadhsiiyo mar hadday dhacayso in mararka qaar dadka qaar lagu yidhahdo war nagaan waxba garan mayside ama waxba ha noo sheegin sidee markaa aan u gudan karaa waajibkaygii dhinacii dacwada xilkii iga saarnaa dacwada guud aynu sheegayna horta waa inaad diintaada contribution gelisid inaad faafisid inaad diinta faafisaa ma cilmi oo quray u baahan tahay miya ma jiraa mujtamac wada culamo aha may dunida ma soo marin kii nebi maxamedna ku dhaho mujtamac wada culamo ahi dunida ma soo marin laakiin maxaa soo maray waxaa soo maray mujtamac mas-uuliyadda xambaaray ah inuu dadkan diinta gaadhsiiyo see loo gaadhsiiye qisa waaxidaan idin tilmaamaya ilahay kitaabkiisa ku taalla suuratu yaasiin ma akhrideen nacam ilaahay wuxuu ka warramayaa magaalo 3 rasuul loo diray oo 3dii rasuulba diiday 3 rasuul waxaa kaloo ilaahay ka warramayaa wajaa'a min aqsi almadiinati rajulun yascaa magaalada dacalkeeda nin baa ka yimi baa la yidhaha kuwii hore rasuul baa lagu tilmaamay kan laakiin waxaa la yidhi maxay rajul min aqsi almadiina halka laysku haya xataa ma joogo wuxuu ka yimi baa yidhi magaalada dacalkeeda waxaa lagu sheegay sifaduu u soconayey waxaa la yidhi rajulun yascaa nin rooraya baa ka yimi muxuu ninkani waday muxuu yidhi markuu yimi يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سجد دعوتي سوا معي والنبي الراعة والرسول الراعة وروح بيدك الدون ما الرسول الراعة انت سائل هي قرآن انت كقري لقد جاي درس خالد إلى قيام الساعة الآخرية نكاس وعدي كلمة شيدن وحبا كلام ما آخرين وحو السمية وحو ليه يا قوم اتبعوا مركز سائل هي وحو كورما هدنا مركو دنتي آخرة وتجي وحو كفكري آخره يسوق جوجو وحكى فكرية أي إلهي نوسو نقلية هدنا محو آخرنا ليه ويدلين سيبو كل انتي آخره كصهد ليه إلهي باورك سي آخرك كاني يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بولي ألا تلكي بالمو أوغادو سيد إلهي نمعيه يناي دين تقاطانو ولي مو كفكرية مسؤولية دي مدرسية إذا دعوة إنه شيء وحوية مسؤولية الديمة دي نتقهدد saxaabada qaar baa nabiga la joogay 3 maalmood 2 maalmood daddan soo islaabiyo yimi midna ku darso waxaanad garanaynin ha sheegin waxaanad garanaynin waxa iska badan dadku waru meelaha ka maqlay intuu sheegay inuu yiraahdo nabiga wuxuu yiri nabiga ku been abuuran wixii aad hubto ee nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam xaqiiqa sheeg laakiin xadiis aanad hubin inuu nabigu yiri inaanu oranin ha sheegin إذا وحنا لنا هداد وحشيقة سنة وحصح الشيء هدي أنا تكون وحشيقة يا هاي نكو ودتك وحشيقة يوجي مساجدك إسلامكو مسائل دقيقة ما وضعها معلوم من الدين بالضرورة بهجرة واحد بدن وضتك وضع قرية ورسالة كالي تكون مع علم بدن بيوباهنتي نتغف كتناض خمر جيس كده هي مع علم بيوباهنتي ورلاهي كعب صا آخر وشغ يسمى علم كلاك عقب باهنتي مسائل بهجرة عامة وأنا باهنين محي علمي بدن قف كستو مسلم ما ay tahay inuu xambaaro waxa inta raaca wixii kale xoolaadku bixin karta dadka masaajidka ku keenin karta yani qofku inuu contribution galiyo weeyaan diintaada inaad mas'uuliyadeeda inta qaado xoog galiso hadaynu sidaa yeelo bari hore inuu diintan meel fog gaarsiin lahayn laakiin hadda waxaan leenahay culimadu may dadka diinta u sheegto war culimada sheegaysa waa farqof afar qof dadkoo dhan baa diinta sheegay saxaabadii waaweynaa ayaa soo islaamiyey maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam isagaa ilaahay rasuul ka dhigay oo dadka la yidhi diinta u sheeg haddana abibakar buu u sheegay abibakar isma odhanin dee nebigii baa joogay adigu maxaad kala qabanaysaa iska daba socon nebiga uun oo aamusno miyuu is yidhi maya abubakar baa baxayoo isagoo cuhmaan binu cafaan waduu keenay oo muslima waa baxayoo isagoo abu cubayda ibn al-jarrah waduu keenay waa noqdayo isagoo wada talxa buu keenay waa noqday 10 المبشرين qayb dhan oo kamid ah abubakar baa keenay abubakar isma odhanin oo nabi maxamed baa joogay adigu maxaad sheegaysaa طبعا النبي محمد waa joogay عليه الصلاه والسلام laakiin abubakar muxuu soo sheegay wuxuu soo sheegay war salaamo ilaahay diintiisa qaata markay aqbaleen wuxuu yiri kaalayo nabiga uu kaalayo wax ka barta hadaba idan dacwadu ma aha khudbad la jeediyo يعني dadka barba hoostaa dacwadu inay tahay intaad masaajidka dadka soo hortaagto inaad khudbad jeediso khudbad maaha
dacwadu waxa weeye waa dadkoo diinta loogu yeedho si kastaba adigu u yeedho dadkoo diinta loogu yeedho weeyaan. Assalaamu calaykum. جزاك الله خير.